shirweynaha xisbiga shuuciga ee Shiinaha waxaa la qabtaa 10kii sanaba 2 jeer markaasi waa fursad naadir ah oo lagu arko cidda la wareegi doonta hoggaanka mustaqbalka dalka madaxweynaha Shiinaha ayaa soo bandhigay 60 nin ee la fadhiisan doona guddida dalka ugu sareysa ee taladu ka go'ay doonto laakiin midkoodna uma muuqdo nin da'yar oo awoodda mar dhow kala wareegi doona Mr. Xi madaxweynaha Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya waa hool buuxa oo la wada sugayo natiijada qaabkan sirta ah oo halbowlo u ah mid ka mid ah dalalka adduunka ugu awoodda badan General Secretary and other political bureau standing committee members ugu dambaynna waa ay soo baxeen waxa iska cad in ninka ugu horeeya uu yahay laakiin ragga ka dambeeya madaxweyne Xi waa kuwa maamuli doona Shiinaha 5 sano ee soo socota waa caado soo jirana laakiin waqtigan waxba ka maqan marka la eego wajiyada waxa la arki jiray qofka xiga ee soo bixi doona balse hadda ma muuqato arrintaasi Let us warmly welcome General Secretary Xi Jinping to deliver waxaana arrintan ay sii kordhinaysaa hadalhayntii ahayd in uu qorshaynayo in uu jabiyo xeerkii labada xilli ee u degsanaa hogaamiyaasha Shiinaha We should never entertain isagoo oo bilaabaya waqtigiisii labaad madaxweyne Xi tala ayuu soo jeedinayaa looma baahna ammaan iyo maamuus shakhsiyeed laakiin waannu soo dhowaynaynaa wararka xaqiiqda ah iyo tusaalaha hagaagsan erayo aan ka tarjumayn ficilada iyada oo tiro hay-adaha caalamiga ah ee warbaahinta aan lagu casuumin kulankan wargeysyada Economist, Financial Times, New York Times iyo BBC-da oo dhammaantoodba warbixinadoodu aanay ogolayn inta badan mas'uuliyiinta waddankan gacan ku haynta awoodda madaxweyne Xi way dhan tahay laakiin su'aashu waxa ay tahay intee ayuu doonayaa in awoodda uu sii joogo